Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta qiimaha badan ee ku xiran kanaalkan YouTube-ka ee Danjire Channel, isku soo noqod wanaagsan iyo aragti kale oo xiiso leh. Beedka waxaa lagu tiriyaa waxyaabaha lagu quraacdo midka ugu wanaagsan uguna waxtarka badan caafimaad ahaan, waana mid laga isticmaalo adduunka oo dhan, waxaana uu jirka siiyaa karti iyo firfircooni badan. waxaana lagu tiriyaa jirka inuu u yahay cunto dhammaystiran dadka waaweyn iyo dadka yaryar, waxayna ku taliyaan khubarada cuntada yaqaana maalintii inuu cuno qofku hal xabo oo beed ah. waxaana lagu tiriyaa beed midka ugu badan ee dhammaan siiya jirka fiitamiinada iyo macdanaha asaasiga ee jirkeena u baahan yahay. cunitaanka beedku faa'iidooyinka caafimaad uu jirkeena u leeyahay waxaa ka mid ah wuxuuna ka hortagaa dhiig yaraanta maadaama uu beedku qani ku yahay oo ay ku badan yihiin فيتامين B12 iyo maadooyinka xadiidka iyo calcium. sidoo kalena meesha wuxuu ka saaraa miisaanka ee qofka ee yaraada sida qofka caatada oo kale, waxaanu si fiican uga shaqaysiyaa dhammaan hormoonada jirka. dhinaca kalena ilaa xad wuxuu wanaajiyaa caafimaad qabka qanjirka tayroodka, waxaanu ilaa xad ilaaliyaa caafimaad qabka lafaha, waxaana ku badan maadooyinka calcium iyo macdanta fosfoorka. sidoo kalena khubarada caafimaadku waxay sheegeen ruuxa dumar ee si nidaamsan isticmaasha beedka inta badan ka badbaado kansarka ku dhaca naasaha. cunitaanka beedku wuxuu ka hortag u yahay dhammaan xanuunada ku dhaca dhuunta, waxaana jira dad badan inay aaminsan yihiin cunitaanka beedku ilaa xad kordhiyo halista kolestaroolka, laakiin khubarada cuntadu waxay sheegeen taasi inay iman karto qofku markuu cuno wax ka badan 2 xabo oo beeda maalintii, laakiin cunitaanka 2 xabo oo beeda iyo wax ka yar in jirka wax dhibaato u lahayn, beddelkeedina inuu jirku ka helayo faa'iidooyin caafimaad iyo kuwa kale.